guys, maanta waxaan soo booqanay Jazeera Estate. Waa goob sida Dubai camal lagu soo dalxiistay. Galabtii dhalinyaro badan ayaa halkan imaado. Kuwan hadda idin muuqdo waa qaar ka mid ah dhalinyaradaas oo halkan soo dalxiistay. Waa dhul bacaad ah oo aad ugu wacan kaxinta mootadan oo rag iyo dumarba ay halkan ku wadaan. kadibna safarkeeni ayaa halkaas ka sii wadanay, waxaana u jeesanay dhankaas Baydhaxan. darawalkeena maanta waa ninka aragtaan Agaasime Ibrahim, isaga gaarigan oo kaxeynaya, balse gaariga wuxuu u socdaa si xawaare sare leh. bal ay gaarigan sidoo u socdo marmarka qaar waxaan dhahaa warwaree ama idin la gudoomaa. Guys, Baydhaxan. Sorry guys, been baa idin sheegay. halkan waxaan u qabaa Baydhaxan, laakiin Baydhaxan maan. xeebtan waxaa la dhahaa xeebta Nimo. waa xeeb u dhaxaysa marka Muqdisho laga baxo intaan la gaarin Baydhaxan ay wax yar u jirtaa. xeeb aad u qurux badan oo qeybtada intusay qeybtan labada qeyb ayada iska leh. wadadan yarta daartaan ayaa u dhaxayso. waxay intusi doonaan muuqaalada aad ku quruxda badan ee xeebtan iyo waxyaabaha ay gaar ku tahay ee xeebaha dalka aysan la wadaagin. waxaa ka mid ah jamaladan aad aragtaan oo hoostooda ay biyaha kasoo burqan doonaan. waxaa biyahan ay aadayaan samada kor ay ku dhaafayaan. meel dheer adoo joogtid waxaa kusoo gaari kara maxay ahayd dhibicda iyo faniinka kasoo bax biyahan si qurux badan oo kusoo jiidasho lehna way isku duubayaan markay hawada galayaan. tan waxay ka dhalanaysaa hirka biyaha oo gadaal ka yimaado derbiga. markuu ku dhufto derbiga wuxuu leeyahay duleelkaas ka dhex baxan biyo ay leeyihiin. shaqartooda bal dhegeyso. muuqaalada kaletana waan idin kala dhexbaxa. daawasho wacan, mahadsanid, nagu soo biir. waqtiga xusguro waxaa la gaaray gabaldhac. halkana maqribka ku tukanay. jawigan wuxuu ahaa mid aan marnaba laga soo tegi karin ee aad u qurux badan. alla iska baridaa maagay, laakiin aan idin bar ninkan. yaa waay ninkan waa isagii oo kule jimco wanaagsan.
guys ugu dambeyn waxaa imaanay magaaladii leerkeeda wata soo daragtaan inta barnaamijkan waqti ku kulmi doono waan iguna saasi nabadgelyo